tartankan ciyaaraha kubadda cagta oo u dhaxeeyay afarta waaxood ay ka kooban tahay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu taageeriyay dhalinyarada shaqo abuurka oo sameeyay maamulka gobolka Banaadir iyo soo dhaweynta gudoomiyaha cusub degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ciyaarahan kubadda cagta oo qayb ka qaata isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabadda ayaa waxa uu soo gudbay finaalka laba waaxood oo kala ah waaxda kowda May iyo waaxda Gahayr waxaana gabagabadii ciyaarta guusha ku raacday ciyaartoyda waaxda kowda May oo koobka ku qaaday 4 dhibcood oo ay kaga badisay waaxda Gahayr gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Xamar Jajab Faaduma Aadan Xasan ayaa ka warbixisay tartamada ciyaaraha degmada kulanka koowaad waxa isku dhacay Horseed iyo Gahayr waxay meeshii guusha ku raacday Gahayr kadib hadana waxa isku dhaceen Gahayr iyo kowda May iyo Jarnaal Daawud hadana guusha meeshii waxay ku raacday kowda May finaalka waxa u soo gudbay Jarnaal Daawud iyo waxa u soo gudbay finaalka kowda May waxaana maanta maxalli jiray ahayd xafladii oo lagu soo ganaanudayay afarta waaxood oo tartankii u soo dhaxeeyay gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Xamar Jajab Ali Abdulqaadir Faarax ayaa sheegay in ciyaarahan lagu dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada tartanka waxa lagu maamuusay shaqo abuurkii uu maamul gobolka Banaadir u sameeyay dhalinyarada ee kunka ahayd ayaa lagu maamuusay waxa kale oo wehelisay xaflad soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Jajab Ismaaciil Mukhtaar Umar gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Mukhtaar Umar Oranjo ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada degmada in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada muxuu ahaa sanadkan tartanka ugu soo horeeyay gobolka Banaadir oo muxuu ahaa uu qaban doono inaan kaalin wanaagsan iyo muxuu ahaa natiijo wax ku ka keeni doono waxaan ku rajaynahay in ciyaaraha aan hormarino oo aan degmada Xamar Jajab ay la timaado koox isboorti oo ugu yaraan xitaa hadii gobolka Banaadir marka laga tago gobolada kale ee Soomaaliya ama kuma tali kara ama dalka dibadiisa u aadi kara ciyaaro mudooyinkan ayaa maamulka cusub degmada Xamar Jajab waxa uu waday dadaalo uu ku doonayo in uu ku hormariyo arrimaha isdhexgalka bulshada ee degmada Xamar Jajab Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho